السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات يا مسلمين waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak. Waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideysanaysaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Magacaygu waa Cabdullaahi. Muuqaalka maanta waxa uu ku saabsan yahay dhismahan. Ka hor intaan muuqaalka u gelin, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadkii channelka igula soo biiray ee subscribe saaray, commentigana ka bixiyay, fiidiyoodii ugu dambeeyay aan soo geliyay. Waxaan si random ah u soo qaadan doonaa video walba dadka commentiga ka bixiyo si ay ugula soo biiraan videoga soo socda. Waxaan meesha ka akhrin doonaa commentiyadooda. Omar Rashid waxa uu leeyahay Ramadaan Mubaarak, Ramadaan Kariim. Asi Abdurrahman waxay leedahay Ramadaan Mubaarak, amiin ya rab, amiin ya rab dhamaan. Abdikariim Xasan waxa uu leeyahay Ramadaan Mubaarak bro lofo, Ramadaan Kariim. sidoo kale Abdikariim walaal, haddii aad doonaysid inaad igala qayb qaadato videoga soo socda, haddaba video comment down below. Dhismahan aad u jeedid maahan dhismo hotel 5 star ah, waa dhismo loo qalabeeyay, loo dhammaystiray in lagu keydiyo meydadka. Waa qabuur, waxa uu ku yaalaa Santos, Brazil. Sanadka markuu ahaa 1991 wuxuu kaalinta koowaad ka galay dhismaha ugu dheer ee qabuuraha caalamka ee Guinness Record Book. Baaxad ahaan waxa uu ku fadhiyaa 40,000 oo mitir square. Waxa uu ka kooban yahay 40 dabaq ama 40 biyaano. Halkii biyaano waxa uu ka kooban yahay 150 qabri. Halkii qabrina waxa uu qaadi karaa ilaa 6 qofood. Kaliya kuma koobna intaas, dhismahan waxa uu meydka hayn karaa ilaa 3 sano, taasoo ka dhigaysa in ehelka meydka ay la bixi karaan ama ay qaadan karaan meydka si ay ugu soo dukadaan ama ugu soo duceeyaan, kadibna meeshiisa ugu soo celiyaan. Waxaa kaloo uu leeyahay qaaco lagu dhigo tacsiyada oo kuraas iyo mukeyf qurux badan ay yeelaan. Waxaa kaloo uu leeyahay beero yaryar iyo meel carruurta lagu ciyaarsiiyo. Waxaa kaloo uu leeyahay meel ay biyaha ka soo daataan. Waxaa kaloo uu leeyahay restaurant ama maqaaxid aad ka heli karto cunto aad u fudud. Dhismahan maanta cadad ahaan waxa uu hayaa ugu yaraan ilaa 25,000 oo meyd. Haddii aad maqli jirtay cirka la tegayaa iyo dayaxa loo duulayaa, maanta meydadkii ayaa la leeyahay dhulku way buux dhaafiyeen oo waxaa loo qaadayaa ilaa cirka. kaliya waxaan dhihi karnaa alxamdulilaahi calaa nicmati lislaam. haddaba ma la yaabtay dhismahan? haddii uu jiro dhismo kale oo aad la yaabtay, nala wadaag fadlan. aad u mahadsantahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.